السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو أمن يوتيوب channel كان قد داورنيسا ما فرح سيد هذا نقع سبتها القالي صوري وهذا هورينا ولا جوكت سيدو كله welcome back to my YouTube channel برشو ناكس مقعيقو أمل بالي هذا هذا نقع سبتها القالي please subscribe نقول فوق سيدو كل فيديو قلنا نوصل سيدو كل وحفلة تام notification button كسي فيديو والبوع عصب أنا صوريكو أدولا سعودة إن شاء الله بإذن الله الكريم yes سؤال بدن بالي سوي دي فيديو غني وجودن بيه oo ahaa qaab yar oo story short story ah ku xamilnayd sheeko yar oo aad bulshadeeda dhexdeeda ugu badan baan video yar ka soo sameynay marka su'aalo badan baa ka yimaaday oo dhanka Instagram-ka hadii rabtaa noqoto iyo commentiga dhexdiisa waxaan jeclaystay insha Allah فيديوغا سدا u jilnay iyo waxyaabaha ku saabsana dad badan baan fahansanay marka waxaan rabay in xoogaa yar dhigdhigo aan fiidiyoogana ku sii badan insha Allah biidillah kareem runtii fiidiyooga shalay waxaan ku duubnay aniga iyo asxaabtayda dhalinyaro waxaanu kamid ahayn qof dulman oo aniga markaas aan jilayay gabar inaan asxaab ay yihiin oo shirqoolaysa iyo gabar noo matalaysay hooyo iyo wiil gabadha xiriir ka dhaxaynayaan ila wiil asxaabiin intaas ku qusaysay marka sheekadu sidan bay noo dhacaysay runtii wadankayga marka la fiiriyo dhibaatooyinka badan ay imaado dumarka sheekadooda iyo waxaas waxay u badan yihiin sanadada la soo dhaafay in dumarku kale shirqoolayeen oo ay godkooda u qodayeen ama wiil ay walaaliyihiin ay u soo xareynaysay ama wiil ay asxaab yihiin ama wiil العك كقاعدته وكل يوسف حرينيسي وحيابها سأد أي وسوا بدأت بالشدنا لحد هذا مركو حربنا إن تبتي وح وسوا إن نشلنا إن كستوب بدن كنا كيشان هذا نوع حتى ردد هاي لقي أبا إن سمعت وإذا كذا رنتي أنا الشخصية ده نحس كمان بدلسه محيل أنا وحنا هاي بانون هاي في النير أنا مثلي وحبنا جمسو كردينيسو مركز إذا بيودا عايزي waa la yaqaanaa qof walba iskuulku dhigto qof ayuu saaxiib leeyahay gabadhu waxay u jilaysaa aniga shakhsiyadeeda waxay jilaysay yani in gabadhan kale ay asxaab yihiin gabadhan kale ay asxaab hadan waxbay wada akhristaan mar walba isku imanayaan marka gabadhan kale waxay tusinaysaa telefoon ay dhahaysaa يعني wiilka kan walaalkay ka helo wax saasay ku leedahay iyadana waxay leedahay okay no problem waa iska ay barakartaa amal wiilka qolku ka soo baxaya si uu gabadha ula kulmo laga yaabo dadkiina hadda taawanaya inaydan fiidiyooga arag laakiin hoos baan soo dhigay insha Allah si wax walba idinku fududaadaan gabadha marka isla maalinkaas isbaranayaan telefoon bay kala qoranayaan way wada hadlayaan marka guriga aan idin sheego idinku soo celiyo wiilka iyo gabadhu way wada dhasheen gabadha kala shirqoolaysa iyo wiilku way wada dhasheen marka inantaan kale buugeeda maalin walba wadata waxay gabadhan ugu imaataa inay wax wada akhristaan kalsooni inta la eg xaafada ku imaataa soo waxa dhacaysa maalmaha kamid ah wuxuu leeyahay imo gabadhii oo kala ku doonayso wax saas adigu ugu sheekeynaya inanta xaafada imanaysa yani iyadoo walsano isdaas okay gabadha saaxiibta waxa ka khaldan imo isbuuca ka soo wareegtay guriga imanaysa waxa leedahay xaaladda ka war way wada hadlayaan wuxuu isku dayaa wiilku inuu dhaqamo fool xun la soo galo ama taabasho fool xun iyo wax saas la soo galo wax leedahay maxaa khaldan maxaa saana maxaa saa u sameynaysa hadalkay hadashaba wiilal kale u yeeriya oo qolka kale ku jira yani gang ahaan ay ugu yeeriyaan soo gabadha saasa loo farxumaynaya carar bay isleedahay way dilayaan qisada runtii qof bay ku dhacday idima dhigi karo because dhowr qof bay ku dhacday dumar ah oo bulshadana dhexdeeda kaga dhacday saasay tahay dad baa waxay u arki doonaan sheekadan hadii ay dhacday waaya u faafinaysa anaga faafin naga ma ahayn waxay naga ahayd awareness sheekooyinka noocan oo kale dadka saa la isugu soo barbarta badana dhibaato ka dambaysa marka anaga waxay naga ahayd awareness ahaan community-ga dhexdeeda u sheega shuqul shaydaan weeye gabar ba guriga iman soo lagu barayaa maxaa la guriga imo sheekadaas waa hore ahayd gabdho please taxadara inta taxadari kartaan nin hadduu kula dhashtay waa meesheeda ilma adeerka ka tiin oo kugu dhowaa hadana saska qaadaysa waxyaabaha qaarkood markaad social media ku dhex aragtidii gabar baa saan lagu sameeyay gabar baa daba khadama todoba biyana laga soo tuuray hadda sheekada ugu dambeysay waxay ahayd inanta yaro xamdi Allah naxariisto ilaahay jannada firdawsa ha ka waraabiyo insha Allah waxaan rajaynayaa gacan ku dhiglayaashaas
in aanan oday iyo sheeko maxaa la dhaqameed iyo waxaasan lagu soo wareegsan la daldalo xanuunka ugu weyn la marsiiyo yani intaan la daldalin xitaa in la jogeeyo insha Allah biidnillaahi kariim waxaan fiidiyoga u jilna waxay ahayd runtii community-gan ku dhex noolnahay badanaa cadaadiska waxaa la saaraa gabdhaha oo waxaa la yiraahdaa ha bixin saana samayn kan ha samayn baa la dhahaa haddana badanaa ma fiirino picture-ka weyn oo ah bulshada dhexdeeda badanaa khaladaadka aadka u badan waxaa ka dhex sameeya wiilka maamada ama wiil ama aabuhu hadduu cadaadiska saaro gabadha waxaa khati ka baxaya wiilkii maxaa yeelay wiilkii banaankii buu baxayaa gabdhihii buu dhaqan xumo ku sameynaya gurigii buu imanaya gabdhaha walaalihiisu gacan u qaadaya gabadha shaqaalaha ahayd kama baxsanayso farax xumo la imanaya image-ka weyn oo yaalo waa kaas marka insha Allah biidnillaahi kariim anaga filinkaas waxaan u sameynay waxay ahayd digtoono ahaan digniin ahaan yani shuqulaadkan haddeer social media ku soo batay gabaray adigana waxaan ku dhihi lahaa please taxadar wax walbo lagu dhaho ha aaminin bini aadamku wuu hadlaa haddana waxaa soo badatay kelimad ah maxaa la dhahayay iguma kalsoonid miya kalsooni ma jirto ma maqlaysaa cid aad ku kalsoonaan kartid ma jirto haddii cardska lagu card baa jira samaha maxaa la dhahayay turubka dadka dheela card baa jira ay ku ciyaaraan nimanku wasaas marba card ba kula soo baxayaan maxaa dhacay iguma kalsoonid miya kalsooni ma jirto ha ku kalsoonaan hooyada may dhalin maxaa kalsooni keenaya qofka kula dhashay baa ku kalsoonaan karta oo waxyaabaha qaarkood kala sheekaysan karta yuu ku yahay ninkan waa nin shisheeye hadhow godka marka ku dhacdana waa ka shalaayaysaa maxay saa ay ku dhacday waxay saa kugu dhacday tabashada tirada badan iyo aaminaada tirada badan ee bini aadamka siinaysa iyo kalsoonidaas xad dhaafka aad dumar sheekadooda galgalaysid iyo maroona marka insha Allah I hope inaa maskaxdeena idin kala gareeyay storyga qof kaliya kuma dhacay waxa ku dhacday dhowr gabdhood oo Soomaaliyeed ku dhacday ilaahay kuwii isxafida ilaahay naga wada dhigo teeda kale waxa socoto sheeko ah gabadha hadii saa u labisato iyada isu keenta in la kufsado ama saas lagu sameeyo runtii anigu ma aaminsani gabadha say rabta ha u labisato oo ma aaminsani in gabadha say u labisatay nin ku soo jiidasho yani ay ku soo jiidanayso wax rab ku sameynayo ma aaminsani waxaan aaminsanahay tarbiyada haddii inankaas tarbiyad wanaagsan la siin lahaa si khaldan gabdhaha uma u eegan gabadha adiguna waxaan kuu sheegay haddaadan wax wanaagsan xiranaynin ha ku agmarmarin meelaha qaar adoo si khaldan u labisan maxaa yeelay image khaldan baa lagaa qaadan karaa anagoo shalay filinkaas story ahaan u sameynay baa waxaana la soo weydiiyey yay ku dhacday qof naga mid a miyay ku dhacday alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay naguma keeno wax qof ay ku dhacday naguma uu jirin kaliya waxay ahayd awareness videoga insha Allah I hope inaad ka hesheen videoga yaga aad please ka qaadataan note aad ka qaadataan ood ku fikirtaan intiida waxyaabaha qaarkood sameynin inaad maskaxdiina furataan maxaa yeelay wax walba oo dhacaya sabab ku dhacaan qofba afka ku macaaninaya ha aaminin anigu af macaanis waan garanaya waan ku af macaanin kara daminis inay aamintid baa dhici karta ha aamin qof af ku macaanay way af ku macaaninaya maxaa yeelay waxbaa ka dambeeya insha Allah I hope inaad videogeena ka hesheen waxaan idinku macsalaaminaa insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh